تنسى أبدا ذكر الله، فالعابد لا ينسى مولاه. لا تنسى أبدا ذكر الله، الله الله الله، فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله، لا تنسى أبدا ذكر الله، الله الله الله، فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله. سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. الله الله سبحان الله. الله الله سبحان الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في العقيدة، مرة شرحنا اما كلمة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أصرمت أها وندرس ولا لضع أنا قلت لك يعني درس طلعنا حق الله، لكن وكان حسيني ماشي سيلتي جواه. waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam masiiradiisiina wax ka nidhaano. waxaanan isku dayi doonaa inaan qaab aan ilqaynayo aanan kitaabka farta marinaynin, inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiqulmakhtuum la yidhaahdo. aniga sawigala macaan yahayba akram diyaa ilcumar ee asiira nabawiya saxiixa kiisa la yidhaahdo. laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynagu adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono. waayo siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqangeliyey. marka waa dadkii diinta dhaqangeliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii, oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka. innaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah, laakiin marka kane waxa weeyaan isagoo camaliya oo dad ay matalayaan qur-aanka iyo sunnadii. yani dad ama bashar dhaqankiibaa waxay matalayaan qur-aanka iyo sunnadu siday u ekaayeen. saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba. waxaan isku dayi doonaa markaasi balsay labada sheekh usoo naqliyaan inta badan inaanu soo guuriyo. haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loosii tiltilmaamo insha allahu haddaynu awoodno isku dayi doonaa. cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogoldhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynka u ekay, si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay. yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawinmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo markaad ka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la raray oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay, inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa in la rari karo noocan loo rari karo. ay ku xidhan tahay uun sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo oo dadka diinta tan ugu yeedhayaan. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan. qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taariikh muujisa inay kasoo sheegaan. yani min aadam kutubu taariikh in badan oo ka midi nebi aadam bay kasoo bilaabaan. qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya, laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taariikhdeeda oo dhan degi jirtay.
carabta taariikhiyan markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday, waa caad iyo thamuud iyo kuwan qur-aanku ka warramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha, iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah. inkastoo culammada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxaya ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximahu llah. alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo, oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit binu ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carabeed marka la tilmaamayo, maalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahda asal waxa uu ahaa yaman, 2 qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyar intaa u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka, halkan markii dambe laga sameeyey. waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaallay ibnu cabaas uu warinayay, mawquufka ibnu cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam, labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin, uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timir ah, ama 2 weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaa kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka warramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. marka الله سبحانه وتعالى kaga warramayo oo ay qolada kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegayaan sifru takwiinkoodana uu ku sheegay inuu 12 jir markaa ahaa nabiyullaahi ismaaciil. mar labaadkii uu kusoo noqdayna waa markay axaadiistu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo uu nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi, dabeetana uu weydiiyey xaalkooda iyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato, nolosha ay cidhiidhi ku tahay, oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaadhsiiya. waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi catabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha. nebi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u warrantay wuu fahmay aabihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa, mid khayr badan maahe. dabeetana waa iska sii daayey. waxaa kaloo riwaayaadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi. marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado, tii hore uu furay. gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiicannahay, iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa inankaygii waa tegayahay, isagoo maqan markana buu yimi oo safarkuu jiro. wuxuu yidhi fariin labaad xaafadaadanaba yani gabadhan hayso waraa buu uga tegey. mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa, taariikhda suganee la hayo axaadiistiiyo qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey. uu ismaaciilna nin weyn ahaa, isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaan buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey. taariikhda carabeed cumuuman markaaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam
dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisi ismaaciil ahaa ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen 3 meelood baa iyada boqortooye ka jiri jirtay boqornimo loo caleema saaro 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada yeman oo waqtiyo kala nooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikha saawsi sugan maaha laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambeeyay baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yeman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo ka mid a qaxdaaniyiintaasi intay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa uu sii dambeeyey oo culamada taariikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yeman oo la soo gaadhsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawas nin la odhan jiro yahuudi mar ka mida intuu qabsaday in najraan oo christan ahaan jirtay ee lagu laayay oo ay culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi اlukhdud annaari dati lwaquud calaa kulli xaal markaan soo duuduubno yeman boqortooya ka jiri jirtay لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه لا تنسى أبدا ذكر الله 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 فالعابد لا ينسى مولاه الله 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 لا تنسى أبدا ذكر الله 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 فالعابد لا ينسى مولاه الله 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 سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله الله